واي لحظة متر iyo u tahay dhinacna waxa uu noqon doontaa 40 40 متر wada weyn oo 24 way haysataa mudane agaasime halkani waxay ka mid tahay dhulka danta guud ee wasaaradda hawlaha guud hayso صح beertan markii naqshada loo sameeyay dhul dan guud laga jaray muddo ka hor way intaasoo sanadoodba way taalay way wasaaraddu mar walba waxay ilaalisaa dhulka danta guud in wax dan guud lagu qabto oo aan si shakhsi looga faa'iideysan waa ka muddo ilaa 4 sano ku dhowbay dhulka danta guud halka yaalay ka ilaahay maanta keenin hospitaalkii dhimirka laga dhiso meelo kale oo muhiim ah oo hadaad hareeraha magaalada ku yaalo oo hadaad u baahataan hadii aan la yiraahdo leedin siin doonaa way jiraan hadda baahidu siday u timaado yeena ku xiran tahay ka wasaarad ahaan waxaanu maanta halkan ka cadeynaynaa inaan dhulka danta guud ee hospitaalka dhimirka loo dhisayo aan si rasmi ah ku wareejino waliba wasaaraddu hawlaha dhulka iyo guryeyntu waxay qaranka u qaabilsan tahay dhismaha iyo ilaalintiisa ya kamida shaqooyinkeeda injineero fara badan oo wasaaradda jira injineeradaasi waxay diyaar u yihiin inay tabaruc ugu sameeyaan hospitaalkan dhisaankiisa iyo waxa la wixii kale ee hawle injineerada looga baahdana shaqo ahaan iyadoo injineero badan gobolka ay joogaan tabaruc iyo free bay ugu shaqeyn doonaan biidnillaahi kariim ka wasaarad ahaan waan ku faraxsanahay inaan dhulkii danta guud ahaa ilaalinay isla markaana wasaaradda caafimaadka aanu maanta si rasmi ah ugu wareejinayno waxaana rajaalkan waxa jooga qoyskii dhulka danta guud beertan lahaa ee dhulka danta guud marka hore maxaa ku dhacday iyaguna beertan lahaa kulli kelmadooda iyaguna yeelan doonaan insha Allah taala agaasima soo dhawow gudoomiyihii gobolkuna maxaa ku dhacday waa kan uu nala jooga ilaalinta dhulkan iyo maxaa ku dhacay shaqooyin badan maayirka iyo gudoomiyaha gobolkaba waan ka wada shaqeynaa wasaarad ahaan waana mahadsantihiin soo dhawaad ka gobol ahaan iyo ka wasaaradda caafimaad ahaanba in hawlaha guud wixii maanta ay halkan kaga dhawaaqday ay haddana codsi ku celiso iyadoo kaashanaysa gobol ahaan iyo degmo ahaanba beeraha hareeraha kaga xigay inay noo biiriyaan dhulkaas oo ku doonayno ka dawlad ahaan iyo ka dad ahaanba oo leenahay waa codsi si ay ajarku u sii bato ninba waalidkiisa dameeshu dhaxal bay ahayd oo nin walba sidan ay maanta iyagu nimanka qaaliga ah odayga duceeyaha iyo odayga u horeeyayba ay ugu hibeeyeen in qofkii lahaa loo bixiyo ilaahay halkii loogu talagalay ha u geeyo qabrigana ha ugu nuuro جنة الفردوس أعلى إلهي معي ساكده. عسبتالله ده إن لفديانا تاسم بقيب كتاي وانا فدينا إنها حبلها رنتي بلا بيد اسمها ونوجب هذا علنينا وانا نستسيار كدونا وساردنا واحد بلن قاعد سايني وحي كدمان أمر دم يستركها أي دم يستري دونتو وحنا هالكاين نوجا سمس بدون عسبتال مانكا أو وناكسن أو قبل كويشوا ودجان كودمي دت كيسة دينا مانكا كحنو سنية لجودا ويو إن أديات بنوجب هذا علنينا عدي بحسي أديات بنوجب هذا علنينا وسارد دولة جود ورنتي حفيدي دنتي جود aad baan uga mahadcelinaynaa odayga gobolka iyo gudoomiyaha gobolku sida uu isaguna ay ugu dhiiradeen inay ku caawiyaan wasaaradda caafimaadka runtii waa dhul aad ugu dhow magaaladii dadku ay soo gaari karaan ku haboon cusbitaal aad baad u mahadsantiin dhamaantiin